kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka saacada oo si toos ah idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee telefishinka S24 oo ku leeyahay magaalada Muqdisho. Qodobada daawan doontaan waxa kamid ah wararka naga soo gaarayo magaalada Kismaayo waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka socdo banaanbax ay dhigayaan dad markaasi isugu soo baxay fagaarayaasha waaweyn ee magaalada, iyagoona sheegay in banaanbaxaasi ay kaga cabanayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. banaanbaxan ayaa la sheegay in dib ay ka riixayaan oo gadaal ay ka riixayaan maamulka magaalada Kismaayo iyo madaxweynihii hore ee maamulka Jubbaland Axmed Madoobe, waxaana la soo wariyay in dadka hadda banaanbaxaya ay u badin haweeney caruur sheegaya inay ku mudaharaadayaan inay ka soo horjeedaan madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud. dhinaca kale wafdi ka socda maamulka Somaliland ayaa goor dhow gaaray magaalada Jigjiga, halkaasi oo la filayo inuu ka furmo wada hadal labada dhinac, taasi oo looga arinsanayo xaaladda ka taagan deegaano u dhaxeeya labada maamul. waxaana la soo wariyay in wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha Somaliland goor dhow ay gaareen halkaasi, isla markaana ay ka wada hadleen arrimaha la xiriira dagaaladii halkaasi ka dhacay. wararka naga soo gaarayo magaalada Asmara ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kulan xasaasi ah la qaatay dhigiisa dalkaasi Afwarki, waxaana labada dhinac ay ka wada hadleen arrimaha la xiriira heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliya iyo xiriirka wada geesoodka ee Soomaaliya, Masar iyo Eritrea. heshiiska oo weli socda ayaa wada hadalka labada dhinac ayaa la filayaa inuu soo gabagabo, iyadoona markaasi laga soo saari doono warmartiyada. ugu dambeyntii waxaa maanta degan xaaladda magaalooyinkii dhowaan ay ka dhaceen dagaaladii u dhaxeeyay Somaliland iyo sidoo kale Khartoum, waxaana la soo wariyay in dagaalkii u dambeeyay ee dhacay halkaasi uu ka dhashay khasaaro fara badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. akhbaaraadka dibaddana waxa ugu waaweyn xuutiyiinta ayaa markii saddexaad waxa ay si toos ah u duqeynayaan fariisimaha ay ku sugeen ciidamada Israa'iil, waxaana la soo wariyay in ay jiraan ilaa iyo 4 askari oo u geeriyootay dhaawacyo soo gaaray duqeyntaasi ay fuliyeen xuutiyiinta dalka Yemen. warkii saacada oo kooban xilligani waa naga inta anigu Cabdi Tawakkal ayaa idin warramayay, kaamirada iyo farsamada waa Cabdi Qani. inta warka xiga ku kulmi doono, dhamaanteen amaan Allah.